سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كيديب أصحابتا halkan fadhido iyo waxaan ka hadli doonaa mowduucyo kala duwan. Anigu waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo kaalinta garsoorku uu ku leeyahay dowlad wanaagga iyo xasiloonida. saaxiibadii kalena dabcan waxay ka hadli doonaan mawaadiic kale ama qaybo kaleeto ay ka hadli doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. garsoorka wuxuu kaalin weyn ku leeyahay dowlad xaqiijinta dowlad wanaagga. sidoo kaleeto wuxuu kaalin muhiim ku leeyahay waxa loo yaqaano xasiloonida. marka koobaad waxaan rabaa inaan hordhac u sameeyo garsoorka kaalinta ku yeelan karo xaqiijinta dowlad wanaagga iyo xasiloonida. garsoorkaas waxaa laga maarmaan ah inuu noqdo garsoor ku dhisan mabaadi'da la isla yaqaano oo loo yaqaano mabaadi'da garsoorka. saddex mabda inuu ku dhisnaado ayaa laga maarmaan garsoorka noocaas. mabda'a koowaad waxaa waaye garsoor madax bannaan inuu yahay. garsoorka si uu u xaqiijiyo dowlad wanaag, si uu u xaqiijiyo xasilooni, waxaa laga maarmaan marka koowaad inuu yahay garsoor madax bannaan. madax bannaan hay'ad ahaan u madax bannaan, shakhsi ahaan u madax bannaan. hay'adda garsoorku waa inay ka madax bannaan tahay labada hay'adood oo kale dowladda. dowladda guud ahaan waxay ka kooban tahay saddex hay'adood waaweyn iyo dabcan hay'ado kaleeto oo maamul. laakiin hay'adaha dastuuriga waa saddex hay'adood oo waaweyn oo garsoorku uu ka mid yahay. saddexdaas hay'adood mid ka mid ah waaye garsoorku waa inuu ka madax bannaan yahay marka hay'adda fulinta iyo sharci dejinta inuu ka madax bannaan yahay. sidoo kaleeto garsooraha garta qaadayo waa inuu u madax bannaan yahay shakhsi ahaan u madax bannaan yahay. marka uu dacwo qaadayo waa inaan lagu faragelin dacwada uu qaadayo. garsoorku marka mabda'a koowaad ay tahay garsoorku inuu ku tiirsanaado waa inuu yahay garsoor madax bannaan si uu u xaqiijiyo dowlad wanaag iyo xasilooni uu xaqiijiyo. mabda'a labaad waxaa waaye garsoorku waa inuu yahay garsoor loo sameeyaa. garsoor loo sameeyaa waxaa waaye dadka oo dhan waa inay u siman yihiin. dowladda iyo shacabku waa inay u siman yihiin. dowladda dhexdoodu hay'adaha dowladdu oo u kala gar qaadi lahay waa inay ayagu u siman yihiin. hadda waxaan qabnaa dowlad federaal iyo dowlad goboleed waa inay u siman yihiin. sidoo kaleeto shacabka caadiga iyo dowladda haddii isdacweeyaan waa inay u siman yihiin. dadka madaxda ah iyo dadka caadiga haddii isdacweeyaan waa inay u siman yihiin. garsoor loo siman yahay oo adeeg cadaaladeed fulinayo si hufan fulinayo inuu noqdaa laga maarmaan. qodobka saddexaad waxaa waaye waa inuu yahay garsoor dhexdhexaad ah oo aan cidna u eexanayn. saddexdaas mabda' marka waa mabaadi' badan ayuu garsoorku leeyahay. laakiin kuwa ugu muhiimsan ee lagama maarmaan ay tahay inuu garsoor ku tiirsanaado si uu u xaqiijiyo dowlad wanaag. marka uu nimaado garsoorku sida uu xaqiijin karaa dowlad wanaag. dowlad wanaagsan waxaa loo yaqaanaa marka la soo koobo dowladda ku dhaqanto sharciga. dowlad wanaagsan waxaa ah dowlad ku dhaqanto sharciga. waa marka aan si kooban aan u sheegno, hase yeeshee dowlad wanaagsan waxay leedahay dhowr halbeeg ayay leedahay oo lagu yaqaano. halbeega koowaad dowlad wanaagsan waa dowlad ay kala baxsan yihiin awoodaha dowladdu. waa number 1. halbeega koowaad ee dowlad wanaag lagu yaqaano, dowlad wanaagsan lagu yaqaano waa in awoodaha dowladdu ay kala baxsan yihiin. waxa loo yaqaano separation of powers ama mabda'a fasli suladaad. saddexda hay'adood waaweyn ee aan sheegaynay iyo dhammaan hay'adaha kaleeto dowladda, kuwa maamul iyo kuwa dastuuriga waa inay kala baxsan yihiin. kala baxsanaanta hay'adaha dowladda waa halbeeg lagu yaqaano dowladaha wanaagsan ama dowladaha dimuqraadiga ee horumar lagu yaqaano inay saddexda awoodood ee dowladdu kala baxsan yihiin. waxaa suuragal marka garsoorku sidoo intuu ku soo gali karaa. dabcan garsoorku wuxuu ka mid yahay hay'adaha saddexdaas hay'adood ee awoodoodu ay kala baxsan yihiin. waxaa suuragal hay'adaha dowladda qaar ka mid ah inay ku xadgudbaan kala baxsanaantii awoodaha dowladda inay ku xadgudbaan suuragal. waxaa suuragal hay'ad dowladda hay'adaha guud ee dowladda ka mid ah
inay ka baxdo xuduudii dastuurku oo u asteeyay inay ka baxdo suuragal garsoorku marka waa hay'adii ku soo celinaysay hay'adii ka baxdo xuduudii dastuuriga ee dastuurku oo u asteeyay cid ku soo celinayso haddii hay-adu ay tirsato hay-adaha dowladda ka mid ah in hay-ad kaleeto ay ku xadgudubtay shaqadeedii garsoorku waa ciddii kala saarayay oo dhihi lahay shaqadan waxaa iskale hay-ad hebel hal ku ekaato garsoorku markaa dhinacaas aan ka fiirino waxaad dareemi kartaa inuu kaalin weyn ku leeyahay xaqiijinta kala baxsanaanta awoodaha hay-adaha guud ee dowladda ama saddexda hay-adood ee dowladda haddii cid ku xadgudubtana uu yahay ciddii muxuu ahay hay-addii ku xadgudubtay ku simi lahay xadkeeda ku simi lahay inuu yahay garsoorka halbeega labaad markaan u nimaado dowlad wanaagsan waxaa loo yaqaanaa dowlad ilaaliso xuquuqda dadka ilaaliso waa dowlad aan ku xadgudbin xuquuqda aadanaha طبعا دولة waxaa mar walbo madax ka dad bil aadana madax ka waxa suuragal marka in hay-adaha guud ee dowladda ama madaxda dowladdu ama hay-adaha kaleetoba ay si ugu xadgudbaan xuquuqda dadka ay ku xadgudbaan suuragal cidii xadgudubkaas la tacaal leeday meel saar leeday waa garsoorka qof kasta oo muwaadina oo wax tabanayo in lagu xadgudbay xaq kamid ah xuquuqdiis ciduu soo aadi lahay ka shaafi lahaday xuquuqdiis u soo dhici lahaday hay-adaha kaleeto dowladana ka celin lahaday in lagu xadgudbane waa garsoorka marka garsoorku wuxuu kaalin mugle ku leeyahay xaqiijinta xuquuqda aadanaha qodobka saddexaad ee halbeega u ah dowlad wanaagsan waxa waaye inay jirto xisbiyo badan inay jiraan dowlad wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa inay tahay dowlad ay jiraan axzaab badan leh waa halbeegyada lagu yaqaano dowladda wanaagsan lagu yaqaano waa jiritaanka xisbiyo badan waxaa garsoorku kaalin mugle ayuu ku leeyahay ilaalinta jiritaanka xisbiyo badan wuxuu ka bilowdaa marka xisbiga marka registration la sameeyo waxa suur ayuu ka soo bilaabanaa ilaa xisbiga oo ka sameysmo markuu xisbiga sameysmo kadib xisbiga dhexdiisa wixii maaragtay muran oo yimaado xisbigaas waxyaabaha kale oo tabanayo ama xadgudubada dowladda oo ka tabanayo maalinta ugu horeyso xisbiga la registreynayo waxa suuragal in loo diido registration loo diido liraa shuruudii waa soo buuxiyay waysan yiraahdo asaga oo xisbigii shuruudii soo buuxiyay diidmadaas marka haddii xisbiga uu aaminsan yahay in oo shuruudii soo buuxiyay laakiin diidmadaas ay tahay diidmo siyaasadeed ama asbaabo kale ay jiraan wuxuu u dacwo karaa maxkamadaha wuxuu u dacwo karaa garsoorka ciddii marka kala saari laheeday in xisbigaas uu mudan yahay in la registareeyo iyo inaan la registereynin oo shardi ka dhiman yahay go-aanka ugu dambeeya cid iskale waa garsoorka haddii la dhisa kadib waxaa suuragal xisbiga dhexdiisa inuu muran u yimaado garsoorka ayaa la aadaa waxaa suuragal xisbigu inuu waxyaabo kale oo ka tabanayo dowladda ama hay-adaha kale xisbiyada registareeyo halkii la aadi lahay marka oo ilaalin laheeday jiritaanka nidaamka xisbiyada badan waa garsoorka waay haddii dowladdu maanta ay soo saarto midda kaleeto dowladdu haddii maanta soo saarto ay tiraahdo waxaa la baabi'inaa qodobka sheegayo in xisbiyo badan ay jiraan axzaabta siyaasaddu waxay xaq u leeyihiin inay ka dacwoodaan arrintaas oo maxkamadda ay tagaan ama garsoorka ay u dacwoodaan garsoorku waa cidda ugu dambeyso ee leh final say ama erayga ugu dambeeya ee arrintaas ku saabsan cidda iskale waa marka garsoorku wuxuu kaalin ku leeyahay waxaa loo yaqaano nidaamka xisbiyada badan oo ah halbeeg ka mid a halbeegyada dowlad wanaag qodobka ugu dambeeyo ee lagu yaqaano dowladda wanaagsan wuxuu yahay inay jirto wax la yiraahdo xurriyatul qowl dowladdu in ay dhiirigelinayso xurriyad
حرية القول أما حرية هذلك حرية الصحافة طبعا وحكمتي هي حقوق أدناها لكن مهم أيوه هي الدولة وناجة الدولة لماذا ساس ترتد أيها وحلو وحصي سجارة لو وحصي عدة إلى أن يستمرك حرية القول iyo xuriyada saxaafadda waa garsoorka hadii lagu xadgudbo ama qodobkaas in meesha laga saaro la isku dayo cidda go'aanka ugu dambeeya iska leh ilaalinayso waa garsoorka markaas saddexdii halbeeg afartii halbeeg ahaa halbeegyada nidaamka loo yaqaano dawlad wanaagga mid kasta oo ka mid ah garsoorku waa kii ilaalin lahay kaalin mug leh ayuu ku leeyahay ilaalinta halbeegyada dawlad wanaagga marka asaas u fiirin waxaan dhihi karnaa marka in aysan jiri karin dawlad wanaagsan garsoor la'aantiis garsoorku marka waa garsoor wanaagsan ee leh tilmaamihii aan soo tilmaanay inuu jiro waa saldhigga koowaad ee dawlad wanaagga dawlad wanaagsan ama maamul wanaagsan ma jiri karo hadii uusan garsoorkaas uusan jirin hadii uusan garsoor jirin qaybta koobaad marka waxay ku saabsaneeday sida garsoorku uu kaalin ugu leeyahay xaqiijinta dawlad wanaag qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay xasiloonida dabcan dawlad wanaagsan hadii la helo xasiloonida meeshaas ay ka imaanaysaa laakiin asigana waxaan isku dayaa inaan wax ka taataabto xasiloonidu waxay noqon kartaa dhowr waxyaabood ay noqon kartaa waxaa imaan karo xasilooni siyaasadeed xasilooni bulsho iyo sidoo kaleeto xasilooni dhaqaale mid walba oo kamid ah saddexdaas qaybood garsoorku wuxuu ku leeyahay kaalin mug leh haddii aan ka soo qaadno xasiloonida siyaasadda aan ka soo qaadno doorasha dhacday murana ka dhacay waa la isku murmay murankaas doorashada ka dhacay hadii uu sii taagnaado meeshaas waxa ka baxayo xasiloonida siyaasadda ka baxayso cidda marka dhihi karto doorashada lagu laabto oo go'aanka ugu dambeeya ee doorasho in lagu laabto iyo in doorashadii hore ay sax tahay waa garsoorka waa ogtihiin wadamo badan oo hadda afrikaan ah maxkamadahooda sare iyo maxkamadda dastuuriga leeyihiin ayaa waxay qaarna soo saareen inay doorashadii la gala sax tahay qaarna waxay gaareen doorashadaas inaanay sax ahayn laga maarmaan tahay in lagu laabto marka xasiloonida siyaasadda tusaalaha ugu fiican ee aan usoo qaadan karno waa doorashooyinka kamid ah waxaa kamid ah masalan dastuurka dastuur wanaagsan haddii aan la helin xasilooni siyaasadeed ma jirayso dastuur wanaagsan iyo shuruuc wanaagsan haddii aysan jirin xasilooni siyaasadeed ma jiri karto haddii marka dastuurka iyo shuruucdu ay iskhilaafto maxkamadda ayaa tahay cidda go'aanka ugu dambeeya iska leh ee dhihi karto shuruucdan muwaafaqsano muxuu ahay dastuurka muwaafaqsana sidaa darteed shuruucdan waxba kama jirto shuruuc saxa la soo saaro ama baarlamaanku ku laabto meelahaas ugu laabto cidda dhihi karto waa muxuu ahay garsoorka tallaabooyinka badan oo kamid ah tallaabooyin siyaasadeed oo dawladdu qaado cidda tallaabooyinkaas haddii ay qaldan yihiin ama ay abuuri karaan xasilooni siyaasadeed cidda ka hadli karto oo kaliya waa maxkamadda marka aan u nimaado xasilooni bulshadeed aan u nimaado waa midda cid walba ay fahmi karto maskaxda haddii aan maaragtay aan sawirano qof muwaadin ah oo dhibana oo lagu xadgudbay oo aan garsoor helin haddii ay dad badan is urursadaan oo noocaas oo ay 10 gaaraan ama 20 ay gaaraan waxay samayn karaan dhibaatooyin oo bulshadeed ama xasilooni darro badan ay samayn karaan dhinaca kale marka aan fiirino dad badan oo dambiilayaal ah ama dadka dambiga gala ah haddii aan muxuu ahay garsoorku uusan aan la geynin oo aan maxkamad la geynin
waa badanayaan waa is urursanayaan waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin badanaa ka dhalan karo marka haddii aan maskaxda ku qaban arrimahaas oo dhan waxaa noo soo degdegayo kaalinta garsoorku uu ku leeyahay xasiloonida bulshada topic kala ka hadli doono sida dambiyada iyo maaragtay garsoorka ula dagaalamo laaliya ka hadli doono maxamed xasan marka aan u nimaado xasiloonida dhaqaalaha kobiciisa iyo xasiloonidiisa garsoorku kaalin weyn oo muglow ku leeyahay haddii qofku uu aaminsan yahay haddii muran uu yimaado ama qof ganacsada ah dhibaatooyin dawladdu u geysato ama qof kale ay u geysato haddii uu ogyahay meel uu aadayo oo garsoor si cadaalada gartiisa u galaya haddii uu ogyahay qofkaas wuxuu ku dhiiranaa inuu sameeyo investment inuu sameeyo inuu abuuro muxuu ahay shaqooyin badan uu abuuro qofka hadduu ogyahay milkiyadiisa iyo hantidiisa in garsoorku uu difaacayo maxkamadda markii la tago gartiisa si cadaalada loo sameynayo waxyaabo badan oo maaragtay wuxuu ku dhiiranayaa inuu investment sameeyo inuu muxuu ahay sidoo kale dadka ajnabiga ah laftirkooda hadday og yihiin waddankan inuu ka jiro garsoor wanaagsan oo dadku ay ku kala bixi karaan waxay ku soo dhiiranayaan inay maalgashi sameeyaan waddanka gudihiisa ay ka sameeyaan marka meelahaas marka aan si fiican u fiirino waxaan ka fahmaynaa kaalinta garsoorku uu ku leeyahay arrimahaas oo dhan inay tahay kaalin mugle inay tahay guud ahaan marka aan soo ururino nidaam garsoor ee wanaagsan ee la tilmaamaha aan soo sheegnay wuxuu xaqiijin karaa dawlad wanaagsan wuxuu xaqiijin karaa xasilooni isugu jirto mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulsho aada u mahadsantihiin salaamu calaykum